أحمد محمود وكمل ورياش الصوماليات توفر المها دليرة مرنا كوبدا باسكت داود الوقت تناجرين هذه من الشيبيو magaalada muqdisho wuxuuna ka mid noqday dadkii qurbaha yimid kadibna maaragtay waqtigiisa iyo aqoontiisa u horay carruurta Soomaaliyeed daawud adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaad nooga warantaa waqtiga ciyaaraha oo soo biirtay iyo maaragtay ciyaartii kugu jeclay oo soo martay عمر وما سنتهي وقتي عيارها بالله وحيه 1985 يوم عن كبيري كوح جير كمقدسو وما درونتي آد ما ويراي مركز ويسو تقل ويسي إنا وقتي بدن ديلو هالسنة ديلي إن سنة كاس كتبنا وحابة بعدين صوت وفنسوها بالبدر سنس لنا وحان جوي ثاني أنكسو بوري كندا إمادي كندا مركز من وحان ديلي عاري كولشكا ووضع كان تورونتو عن وعياري كوح جورجيا كوان كولج سنة مركو هاي 1994 مركو هاي يا عياري داود waxaa hadda tababarta carruur Soomaaliyeed carruurtaasi oo sida aan ogahay waqti badan aad geliso ayaga laftooda maaragtay waxyaabo fara badan oo maanta carruurta ay dhaqan ah ay maaragtay ay gali lahaayeen ama dhibaato ay nafsadooda u horseedi lahaayeen inay maanta ka badbaadeen tababarka aad siisay dartiisa marka ilaa ay hadda horumarka aad carruurta ka aragtay aad tababarto bal waxaad noo sheegi kartaa Umar haddaan wax kaaga taabto 5 sano ka hor ayaan bilownay tababarkan waxyaabihii nagu kalifay runtiina waxay ahayd waxaan aragnay carruurteeni baahida ay u qabeen isboortiga especially basketballka garoon la'aan oo jirtay iyo macallimiin la'aan oo jirtay darteed ayaa anaga nagu kaliftay aniga iyo Axmedey inaan carruurta u istaagno oo u raadino garoon aan u raadino oo maaragtay garoonka markaan helnay kadibna aan u bilownay tababar jirkiskooda iyo maskaxdiga labadaba laga dhisaayo waxyaabaha aan ka faa'iidnayna waxaa ka mid ahay sanadkan hadda aan ku jirno gudihiisa waxaan halkan ka wadnay 5 carruur runtii da'dooda kan noogu yarna uu jiray 14 kan noogu weynna uu jiray 17 sano jiray waxay ka qayb galeen ciyaar Ingiriiska lagu qabtay ay la ciyaareen rag ay runtii ayaga aad ugu waaweyn da ahaan iyo jir ahaanba saas darteed ay aad runtii ula qaybsadeen ciyaarihii in laba guul oo aad lagu filnayn inay meeshaas ka soo hooyeen marka waxaan isleenahay in horumar ayaa ka gaarteen ciyaarihii tababarka intaas dheer ku soo jirtay daawud adigoo mahadsan ilaa iyo hadda carruurta aad tababartaan waddankan aan ku noolnahay gaar ahaan magaalada Toronto ma jiraan carruur u ciyaarto ama dugsiyadooda sare ama maaragtay ilaa heer degmo ama maaragtay ilaa heer gobol oo u diyaarsan ama haddii aysan ciyaarin u diyaarsan ma jiraan waa jiraan carruurta badankood waa high school ay dhigtaan kulligood ku jiraan high schoolka kooxda laakiin dhowr qofood oo hebel dhigi kara ayaa ku jiro aad iyo aad u fiican wana ka mid ahay kuwii haddeertaan aan u wadnay Ingiriiska sida Isxaaq oo iskoolka Jeffries u dheelo waana ciyaartooy aad iyo aad basketka markuu yaraantiisa ku bilaabay runtiina basketball wax saas uu ka kasay maysan jirin laakiin tababarkii uu soo qaatay darteed waxa uu sameeyay improvement maaragtay aan la filnayn waana ciyaartooy aad iyo aad u badan oo ciyaartan ku fiican ciyaartan ku fiican labadooda daawud ilaa ay hadda carruurta aad tababarto tiradooda intee ay la eg tahay kaalmada aad waalidka ka heshaan intee ay la eg tahay runtii ciyaartooyda yaryar halkan aan ku hayno daadooda horta waa 10 jir ilaa iyo 17 carruurta tiradooda waxay gaaraysaa 50 carruur runtiina waa waalidiinta la'aantooda horta heerkaan maaba soo gaareen baa naga ma noo suurtoobi lahayn 5 sano tababarkoodna haddaysan ahaan lahayn waalidiinta especially hooyooyinka aad iyo aad ayay maaragtay carruurtooda ay diyaar u yihiin inay u istaagaan ay caawiyaan aad iyo aad ay u mahadsan tahay haddana waxaan waraysan doonaa macallin kale oo la shaqeeyo ama ay carruurta la tababaraan daawud iyo waalidiin Soomaaliyeed oo caawa halkan goobjoog ah haddii ay noo ogolaadaan عمر وما سنتهي هذا ما سنتهي haddana waxaan oo suura gashay inaan wareysano macallin Axmed Maxamed Abuukar oo ka mid ah tababarayaasha aan caawa garoonkan ku soo booqanay Axmed adigoo aad iyo aad u mahadsan
maadaama aad adigii caruur Soomaaliyeed aad tababartaan caruurtaanina mustaqbalka ay rajeynayaan inay heer ka gaaraan ciyaarta ilmaha tababarka aad siisaan ilaa ay hadda horumar sidee la taaban karo aad u aragtaan wallaahi waxaan u arkaa tababarkan aan siin caruurta in ay yeesheen mustaqbal badan ciyaartooy badan oo ilaa hadda oo laga fiirsaday ciyaarihii Yurub aan geynay oo Ingiriiska lagu qabtay ciyaartooy Xuseen waa nin aad iyo aad oo talent u ah oo future-kan mustaqbal ku leh ciyaaraha ninkaas waxaan u maleynayaa insha Allah inuu noqon doono ninka oo Soomaalida oo aad ma arki doon ninkaas nin la mid ma arkin wallahi bariyahan laakiin dhalinyaro badan waa jirtaa isaga la mid laakiin asaga ma sha Allah ilaahay hibad u sii ciyaaraha ninkaas oo kala ku jira helmaani hadalku ma jirto Axmed Dey wuxuu kamid ahaa ciyaartooydii kooxda Manishibiyo ciyaartooydu wuxuu kamid ahaa maartay heerka koowaad marka maadaama uu aqoon u lahay sportska mudana ku soo jiray in maanta waxay faa'iideysay in aqoontiisa uu gaarsiiyo caruurta Soomaaliyeed sida aad ogtihiin maanta aad iyo aad ay ugu dhibiyeen caruurta Soomaaliyeed qurbaha maanta aan joogno macallin Axmed marka maadaama aad caruurtan halkan aad tababar ku siisaan qaarkoodna aad tiri ilaa hadda heer fiican ay ka gaareen kubadda kolayga marka caruurta aad tababartaan da'dooda intee u dhaxaysaa laga soo bilaabo ilaa intee caruurta aan tababarno da'dooda waa 10 ilaa 18 ayay u dhaxaysaa waxaan mar walba aan focuska aad u saarnaa caruurta yar ee da'dooda 10 ilaa 13 ilaa 14 kuwa kale xogaa yar waa lamaan lay ku yihiin waa focuskeennu waa 10 ilaa 14 marka maadaama caruurta laga soo bilaabo 10 ilaa 18 aad tababartaan waalidiinta caruurtaasi dhalay ilaa xad kaalmo uma aragtay la taaban karo ilaa intee ka heshaan marka wallahi waalidiinta qaarkooda kaalmo fiican aan ka helnaa hanugu kaalmeeyaan xoogooda qarashkooda hanugu kaalmeeya dad badan ayaan kaalmo ka helnaa dadka qaarkoodana maba aragnaba caruurta qaarkooda waalidiintooda maba naqaanaba war aabbahaada aabe hooyadaada aabe banaankii ugu dejisay ama banaankoo ugu dejiyey ayaan wax mar walba ay yiraahdeen marka caruurta Soomaaliyeed waxaan u baahanahay waalidiintooda in ay sidii ay na taageeraan oo kale inay noo taageeraan aadna nooma taageeraan please inayna taageeraan jecelnahay ilaahay yiri okay macallin Axmed adigoo maatan waalidiinta aad sheegtay caruurtooda inay banaanka ku dajiyaan ama ay maaragtay marnaba aysan soo raacin waxa loo baahan yahay caruurtii dad mas'uul ah oo dhalay inay la socdaan hadii cunugii qalad suubiyo hadii cunug wax ku dhacaan marka waalidiinta aan wali caruurtooda aan keenin goobahan oo kale ama kuwa caruurtoodii aan soo raacin marka maxaa kula talinaysaa waxaan kula talinaa horta number 1 in waalidiintaas ay caruurtooda soo raacaan haddii kale aniga waxaan ugu qasbayaan in caruurtii aan dhaano meeshan ma aha golo oo la iska yimaado inaan fadhiisino oo aan dhaano maalin kale hanoo soo noqonin gurigaada iska joog ilaa aan ka aragno waalidkaada oo ku imaanayo ku fiirsanayo waxa sameynaysid qalad iyo xumaanba inaa aragtid caruurtaada wixii lagu suubinayo inaa ku taageertid macallimiinta macallin Axmed adigoo aad iyo aad u mahadsan ugu dambeyntii waxaan ognahay sanad kasto inaad maaragtay waqti gelisaan caruurtan oo maaragtay si ay ayagana uga faa'iideystaan waxyaabo kale oo caruurta dulinimo ay geli lahayn maaragtay kaga badbaadaan marka maxaad kula talinaysaa waalidiinta khaasatan ilaa hadda aan caruurtooda goobaha wax lagu baray sida basketka ama maaragtay aan keenin marka maxaa leedahay caruurtaas waalidiintaas waxaan leeyahay horta number 1 meeshaan waxa laga bixiyaa kiro qarasha ku baxo oo bishii 430 bishii waxna si waa in kooban kuwa kale inay maanta ku yimaadeen 2 weekna ma imaanayaan marka inay aawad meelna ma ka shaqeynayso meelaha ajnabiga lacagta afrontiga laga qaada hadaad dhiibin albaabka laga saara hadaad caruurtaada la joogin maba keeni kartid marka waxa waa inay nagu taageeraan insha Allah ilaahay anaga waa dhashii oo Soomaalida ayaan wax u qabanoona qof ajnabi ah xagga waa qof walba isku jiro
marka waxaa waaye in la isku taageero jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Toronto waalidiinta haddayna taageerin wax noo soconaya mal waalidiinta inay taageer inaan ka helno waaye hadday tahay xoog qarash meeshaan qarashaa ku baxo xoogna waa loo baahan yahay in la ishelbagareeyo aan kula tali lahay taasaan hawada u mari lahay insha allah macallin axmed aad iyo aad ayay umahadsan tahay haddana haddii aan noo suura gasho sida aan sheegay waalidiinta caawa halkaan jooga qaar ka mid ayaan waraysan haddana waxaa noo suura gashay caawa inaan waraysano waalidiinta Soomaaliyeed ee gabar ka mid ah oo magaceeda la yiraahdo Zahra Xirsi Cabdulle Zahra adigoo aad iyo aad u mahadsan aadna ka mid tahay waalidiinta caawa halkaan yimid sidee ayaad u aragtaa tababarka carruurtan loo samaynayo faa'iido intee u leeyahay wax faa'iido hadda aan ka aragnay ciyaalka waxa waaye siday isku barteen siday u ciyaaraan siday wax u qabsadaan ayaga dhexdooda inay maxay hayto iswanaajiyaan iswalaalsadaan intaas horta aad iyo aad wax weyn aan ka aragnay midda xigtase waxa waaye in ilmihii la tusiyo isku imaadkaas wax weyn ay u tahay balooniga xaggiisa balooniga wax weyn ay ilmaha u tartaa waxay ka caawinaysaa waxyaabaha xun inay yacni ku biiraan ama ay falo gareeyaan sidaas darteed ayaan maxay hayto ilmaha ugu tixgeliyaa inaan keenno meesha Zahra carruurtaada sidaan ognahay halkaan keentaa imise carruur ayaad halkaan keentaa waqtigii aad keenista bilowday ilaa hadda meeqa sana laga joogaa haddaan qiyaaso ilaa iyo 7 sano ayaan ilmaha keensadaa meeshaan oo aan ku tababarkan iyo waxaan dhan aan kala qayb galaa anigana aan volunteer gareeya sidaas darteed marka waxa waaye ilmaha meel wanaagsan waa kan meeshaan imaatinkeeda ilaa iyo hadda waalidiinta Soomaaliyeed aan ilmahooda keenin meelahan carruurta banooniga lagu baro sida aad sheegtana looga fogeeyo wax dhibaato in carruurta ay faraha la galaan waalidiintaasi maxaa kula talinaysaa waalidiin waxa jirta carruurta iska soo diro oo xataa aan soo raacin ayagana maxaa kula talinaysaa waxaan horta midaas wax weyn ayay maxay haytood qayb weyn ay ka qaadan lahayd waalid walba inuu yimaado oo arko meesha ilmaha ay ku ciyaarayaan siday wax ugu ciyaaraan iyo dadka ay la ciyaaraan iyo dadka tababaraya siday u egyihiin in ay ka taageeraan inay yimaadaan ilmahooda la joogaan ku support gareeyaan wax walba oo meesha ka dhacayo haddii aad intaad keenta aad ka dhaqaado oo beri wiilkaas ama gabadha wiilkaas ay wax ku dhacaan يعني يا كمسؤولة وإن سومالي نم ويجي أن كسر تجنا وحكورادنا تاسنا وح معقولة ما هم ودن كأن جبنا كما هرجلي سمر كولي وحي وباهن تمشاني تو إسحابين وحلي هذا إن لو دخل والدين أن ولي المهود كينين أيجنا معقولة تلنزه والوالب ilmaha in guriga lagu haayo ama TV iyo game lagu dhaxaayo uma wanaagsana inay soo bixiyaan arkaan in ilmaha ay gaari karaan horumarka ay kuwa ay follow gareynayaan ay la gaaraan wax weyn ha keensadaan ha arkaano ha ka soo bixiyaan guriga iyo TV-yada ay fiirsanayaan marka ma isleedahay carruurta maanta la tababarayo inkastoo carruurtii laga soo fogeeyey maarta waxyaabo kale oo xumaan ay geli lahaayeen haddana tababarka la siinayo haddii ilaahay u kaso ma laga yaabaa ama niyadaadu ma ku rajo weyn tahay in carruurtaasi berito ay noqdaan carruur u cayaaro dugsiyada sare ay dhigtaan kollejooyinka ay dhigtaan ilaa heer degmo heer gobol mustaqbalka ka gaar maaragtay cayaartaan inay ayaga ku faa'iidaan wax walba waxaan la gaari karin ma jirto haddii aan lagu dadaalin waa la gaari karaa meeshii ayaga filayaan email ka fiican inay gaaraan waa rajaynaynaa marka mustaqbalka wax walba waa la filayaa insha Allah taasina waxay ahayd Zahra Xirsi Cabdulle oo kamid waalidiinta carruurta caawa halkan lagu tababaray qaar kamid ay keensatay marka adiga aad iyo aad ay u mahadsan halkan waa qarnimo online haddii alla idmo waraysiyo kale ayaan maartay idin soo gudbi doonaa